kulankan oo ay warbaahintu dibad joog ka ahayd muddadii uu socday isla markaana dhex marayeen gudida doorashooyinka Somaliland iyo waliba saddexda xisbi qaran ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa markii uu soo dhamaaday kulankaasi warfidiyeenada la hadlay afayeenka gudida doorashooyinka Somaliland Saciid Cali Muuse waxaanu halkaasi kaga dhawaaqay waqtiga la qaban doono diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka arinta aad meesha u taagantihiin oo ah waqtiga doorashada anoo ka hadlamayna asaan u sheegnay diiwaangelintu ayaan idin sheegaynaa diiwaangelinta haddii eeba idmo waxa ay bilaaban doontaa Rabadaan ka bacdi waxaanu isla garanay xisbiyada in marka Rabadaan aan la shaqayn karin marka sidaa darteed waxay bilaabanaysaa bisha maxay tahay July haddii eeba idmo aakhirkeeda ama marka Ramadaan ay dhimaato laakiin hawsha commissionku iyo doorashooyinku ma aha mid halka ka bilaabanaysa way soconaysaa annagu Ramadaan waa shaqaynaynaa oo waxaan ku galeynaa degmooyinka iyo gobolada ayaan tagaynaa hawshana waan wadaynaa waqtiga aan idin sheegayno oo ah waqtigaasi muddo adigu waa maxay tahay haddii eeba idmo Ramadaanta ka bacdi waxa markaa bilaabanaya diiwaangelinta 4 bilood baa diiwaangelintu soconaysaa waxa ku xigi doona bil iyadana ah bishii wax la kala saarsaarayay oo dadka iyo qalabkii iyo wixii la soo diiwaan geliyo dham halkan ay ku iman doonaan iyadana oo la jeegarayn doono farsamadeeda taana faahfaahinteeda hadda ma rabo inaan u galo laakiin waxa weeye waqtigaasi ayay iyadu markaasi dhammaan doontaa iyaduna hawshaasi waqtigan iyo aan idin sheegayo oo aan idin leeyahay waqtigaasi ay dhammaanaysaana runtii ma aha waqti rasmi ah oo maxay ahayd tooy kama go'aan ay tahay ama kama dambaysa waxa weeye waqti aanu odorasnay oo saadaalinay in hawshu ay sida u bilaabanayso waxyaabo badan baa dhici kara oo iman kara marka waxa weeye maanta laga bilaabo 9 bilood ayaa hawshaasi ay ku socon doontaa insha Allah biidnillaahi kariim oo ay ku jirto waqtiga aan ka reebnay 3 bilood iyo bisha Ramadaanta iyo 4 bilood oo diiwaangelintu soconayso ilaa laga gaarayo markaa waqtigaasi wixii waqtiga ka dambeeyay ayaan hawsha kale taad dadku filaayo aduu saa doonaysan xisaabsado annaga inta ayaa hawshaasi ay naga dhantahay waana ku mahadsantihiin 9 bilood baa tiri ayaan hawsha ku qabananaa soo ma aha macnuhu 26 June sanadka 2015 ma qabsoomayso doorasho oo dib u dhacday anagu kuma oranayo doorashada dib u dhacday anagu waxaanu ka hadlaynaa Axmed waa kuu sheeg waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye diiwaangelin waa kuu sheego markii hortaan ku mahmo waxa ku yiri oo dhacay sida u sareeyaan baa loo kala qaadaa sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii u kala hadlayay saddexda xisbi qaran ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland xogayaha qorsheynta xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdirashiid Riyaraac xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ah ee Ucuda Cabdinaasir Qodaxa iyo waliba gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga muxaafidka ah ee Kulmiye جامع شباب كنت هرت وحويان كوميشنكا دورشوينكا قرنكا هول علوس با سارن inay diiwaan gelinta qabtaan iyo doorashooyinka waan ku sugaynaa mudana waanu kala shaqeynayna sidii arrimahaas u qabsoomi lahaayeen hadda waxaan isla dhameynaa arrintii technicalka ahayd oo ahayd diiwaan gelinta sida ay idin sheegayna runtii waanu la qaadanay waanu ku kalsoonahay waan ku kalsoonahay waxaan waliba aan u soo jeedinaynaa inaan timeline-ka hadda aan isla dhameynay aan isla saxnay inaanu xiradaha iska istaagno oo sida uu qabsoomi lahaa iyo sida uu hirgeli lahaayeenba aanu fuladooda qaban aanu xiradaha ka istaagno 26 June wad ogeydeen wiigii hore waxaan isla wada qaadanay anaga iyo xisbiga kale wadani iyo odayaasha madashiba mowqif cad baan iska istaagnay 26 June wixii ka dambeeyay wixii laga yeeli lahaa arrimaha doorashooyinka marka baabkaasi mowqifkayga iska bedel wax uu ka bedelay ma jirto laakiin kan aan isla qaadno waa kii diiwaangelinta waanu ku kalsoonahay insha Allah billahi kaliim 9 bilood ay imika qabteena way nagu dhameyn doontaa doorashadu way cadday inaan 26 June qabsoomahay waxaanu ka yeelanayna waana kii gudida u saarnay anagii labada xisbi kale mucaaridka timeline lagu qabanayo diiwaangelinta waxay noo sheegeen 3 bilood inay diyaar garow ugu baahan yihiin qalabkii iyo diyaar garowgoodii 4 biloodna doorashadu soconayso bil diiwaangelintu soconayso bil Ramadaanna ku dhex jirto bil lagu kilin gareynayo micnaheedu waxa weeye bisha July ilaa November ayay hawsha ku dhameynayaan waa diiwaangelintii waa ku talagalkii
واسدا كوميشن نوسو قدية doorashadii dib ay u dhacaysaa 26 June bay inay qabsooto waa muuqataa inay dib u dhacaysaa ma aqbalsantiin mise ma aqbalsantiin doorashadu maanta dub ma dhicin hore dub loogu riday maaha maanta su'aasha weydiin ma aqbalsantiin mise xisbiyada waddan ma 26 June qaranku maaha komishanka qaranku komishanka waa ka ballaaran yahay komishanku hawshoodii bay noo sheegeen oo qabsanayaan 26 June tala qaran baa u taala qaranka doorashadu haddii dhici weydo de tala qaran baa laga gelayaa halkeeda tala qaran marka tala qaran waxa weey oo la isugu imanayaa de waxa nafta inoo keen waxa weeye Soomaaliland marka la eego wadi wangelinta doorasho kasta waxa argushay ee wareeriyay wadi wangelinta maanta komishankani waxay ku talabsadeen talaabo aad u wanaagsan oo ay rajeynayaan laguna rajeynayaan dhaxal reebto oo maruu laga gudbo sheekadan diiwaangelinta doorasho walba diiwaangelinta laga hadlay hadday taasi maanta sida qorshe ay u soo dhigeen alla inoogu qadaraysaa u dhacdo waxaan filayaa uu doorashada waqtigeeda ka dhici doonto dib uga dhici doonta ma jiri doonto isku soo wada duuba go'aankan ay maanta soo saareen gudida doorashooyinka Somaliland ee ah waqtiga la qaban doono diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka oo sida ay sheegeen qaadanaysa muddo 9 bilood ah ayaa waxay taasi muujinaysaa in 26 June ee la filayay inay doorasho dalka ka qabsoonto aanay ku qabsoomeynin iyadoo axsaabta mucaaridkuna ay ku adkaysanayaan mowqifkoodii hore ay ka qaateen haddii ay doorashadu kala dhaafto waqtigeeda kaasoo ay sheegeen in laga yeelan doono tala qaran sidoo kalena la kala diri doono dhammaanba golaha wakiilada iyo xukuumadda Somaliland halka ay xukuumaduna eedahaasi ugu leexinayso gudida doorashooyinka Somaliland iyadoo maanta go'aankan ay soo saareen gudida doorashooyinka Somaliland uu u qoyskeynayo cid kasta oo rajo ka qabtay in doorashadu ay 26 June ku qabsoonto inkastoo ay axsaabta mucaaridku sheegeen inay tala qaran ka yeelanayaan haddii ay doorashadu kala dhaafto ayaa haddana waxaan la garanayn mowqifka ay ka qaadan doonaan Khalid Bulshaawi Somaliland Space Channel Hargeysa